بسم الله الرحمن الرحيم maanta gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad waxay qaabileen laba wafdi oo labaduba ka socday qolana iyo labaduba runtii ka wada socday United Nations-ka ha kala duwanaadeen shaqadoodu. wafdiga hore wuxuu ahaa gabar Premier la yiraahdo oo hogaaminaysay kulli koox ka socota xafiiskeedu waxa weeye oo u qaabilsan tahay xoghayaha guud oo qaybsanaha gaarka ah ee arrimaha la xiriira dambiyada jinsiga. xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxay u tahay u qaabilsan tahay ku magacaaban tahay dambiyada jinsiga ee dhaca. marka wax badan baa la isweydaarsaday oo ay warantay. waxa ugu muhiimsan warantayna waxa weeye dambiyada jinsigu dalalka ay dagaaladu ka socdaan ama ka dhaceen ama ka soo kabanaya ay ugu badan yihiin inuu inta badan ay dhacdo oo data la ururiyay ee hadda United Nations-ka iyo meel walba iyo riboodhada lagu heli karo waxa weeyaan 90% waxay dhibtaas u badan tahay wadanada dagaalada ka soo kaca ee sideen oo kala ah. marka shuruucda lagula dagaalamo in waxay iyagu ku doodayeen in shuruucda lagula dagaalamo xagga sharciyada maadaama waxaan wax hore aan loo arki jirin yahay wadan walba shuruuc cusub uu sameeyaa oo looga hortago waa looga warramay inuu jiro shuruucda baarlamaanka taalo oo arrimahaasi eegaysa oo wax ka qabanaysa laakiin hadda wada tashi ku jirta. waxa kaloo laga hadlay dhibaatooyinka dhaqaale ee aan wax qabadka marka la hal qabto yani dhaqaalaha ka hor dhibaatooyinka dhaqaale ee lagu jiro adu waxay ballan qaadeen in ay wixii ay qaban karaan ay caawinayaan. waxa kaloo wafdigaasi waxa ku xigay oo kale oo UNDP ka socota oo iyaguna runtii baaray eegayna ma aragtay wax qabadka UNDP sida wax la qabatay baarlamaanka maadaama ilaa 2012 ilaa hadda la shaqeeyay UNDP qoladaasi oo ka timi Mareykanka Canada iyo Mareykanba ka yimi ujeedadiisuna waxay ahayd evaluation UNDP maxay qabatay maxay la qabatay maxaa si ka duwan loo qaban karaa wixii ay qabatay si aad u rabteen ma u dhacay hadii dhibaato jirto maxaa ka yani wax noocaas ah oo la yiraahdo evaluation oo dabagal ah oo la eegayo si ujeedada loo sameeyay ay tahay wax qabadkii UNDP ay qabanaysay inuu sidii loogu talagalo u socdo in cashar laga barto haduu meel ka hagaagi waayay si loo hagaajiyo inta dambe waa dib u eegis baa lagu sameeyaa ama evaluation waxa la yiraahdo. marka kaasana kaabo mail ahaa maanta marka shaqada inta ayay ahayd oo ay ku dhamaatay. waa mahadsantihiin.